Assalaamu calaykum. Tobanka qof ee dunida ugu awooda badan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. 10. Larry Page waa aas-aasaha shirkadda Google. Isaga iyo Sergey Brin wuxuu ku shaaciyay war-saxaafadeed in Google-ka uu noqonayo shirkad hoos imaata shirkadiisa cusub ee Alphabet. Larry Page waa maalgeliye aas-aase ka ahna shirkadda sahaminta hawada sare ee Planetary Resources, wuxuuna sidoo kale maalgeliyaa gawaarida duulaya. Guud ahaan hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa $65.4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. 9. Narendra Modi waa ra'iisul wasaaraha hadda ee Hindiya, waddanka labaad ee ugu dadka badan adduunka, waxaana ku nool dad gaaraya 1.3 bilyan oo qof. Waa hogaamiyaha labaad ee ugu taageerada badan barta Twitter-ka. Wuxuu isku dayayaa sida ugu fiican in dalkiisa ugu riixo adduunka dijitaalka ah, sida uu aaminsan yahay haddii uu u baahan yahay inuu Hindiya ka saaro saboolnimada. Marka wax soo saarka tiknoolajiga waa furaha ugu weyn. Wuxuu talo iyo caawinaad ka raadsaday maamulka fulinta shirkadaha sida Facebook iyo Google. Waa ra'iisul wasaarihii afraad ugu waqtiga dheeraa ee soo qabta dalka Hindiya. Bishii November 2016, wuxuu si lama filaan ah ugu dhawaaqay qorshayaal lagu tirtirayo labada lacag ee ugu waaweyn Hindiya si loo yareeyo lacagta la dhaqay iyo musuqmaasuqa. Modi wuxuu sare u qaaday sumcadiisa inuu yahay hogaamiye caalami ah. Sanadihii ugu dambeeyay booqashooyinkii rasmiga ahaa oo ugu tagay Donald Trump iyo Xi Jinping, wuxuu sidoo kale u soo muuqday shakhsi muhiim u ah dadaalka caalamiga ah ee wax loogu qabanayo isbeddelka cimilada, maadaama kulaylku saameyn ku yeelanayo malaayiin muwaadiniin reer miyi ah ee dalkiisa ku nool. 8. Mohammed bin Salmaan Al Sacuud MBS aabihiis ayaa weli ah boqorka Sacuudi Carabiya, laakiin amiirka dhaxal sugaha ah wuxuu xoojiyay awoodiisa. Shaki la'aan wuxuu la wareegay talada waddanka. Wuxuu awood u leeyahay inuu wax beddelo. Bishii November 2017, MBS wuxuu ku dhawaaqay olole musuqmaasuq la dirir ah, kaasoo sababay in dad badan oo caan ah oo reer Sacuudi ah la xiro laguna khasbo inay hantidoodii wareejiyaan. Natiijada ololahani awgeed, 10 bilyaneer oo Sacuudi ah ayaa laga saaray liiska sanadlaha ah ee Forbes ee milyaneerada adduunka. Amiirka wuxuu noqonayaa mashiinka guud ee haga dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Bariga Dhexe. 7. Bill Gates waa aas-aasaha shirkadda weyn ee Microsoft. Isaga iyo xaaskiisa Melinda waxay guddoomiye ka yihiin Bill and Melinda Gates Foundation, oo ah hay'adda samafalka ugu weyn adduunka. Ururkoodu wuxuu mar hore ugu deeqay $35.8 bilyan oo doolar joojinta cudurrada sida kaneecada, malaariyada, HIV-ga iyo cudurro kale oo badan oo waxyeello leh. Wuxuu kaloo taageeraa waxbarashada, maktabadaha caalamiga ah, caafimaadka adduunka, gargaarka degdegga iyo horumarinta beeraha. Bishii May 2020, hay'adda Gates Foundation waxay sheegtay inay ku bixinayso $300 milyan si loola dagaallamo cudurka faafa ee loo yaqaan coronavirus, maalgelinta daaweynta, baaritaanka iyo tallaalada. Bartamihii Maarso 2020, Bill Gates wuxuu ka tegay xubinimada guddiga ee Microsoft, shirkadda software-ka ee uu la aasaasay Paul Allen sanadii 1975. Wadarta hantidiisa guud ahaan waxay gaaraysaa $115 bilyan oo doolar. 6. Pope Francis waa hogaamiyaha ruuxiga ah in ka badan 6 meelood meel ka mid ah dadweynaha adduunka, 1.3 bilyan oo qof. Wuxuu ka dhigtay hadafkiisa shakhsiyeed inuu beddelo muuqaalka kaniisadda Kaathooliga. Bishii November 2016, wuxuu siiyay wadaadaha awood ay ku cafiyaan haweenka soo rida ilmaha. Wuxuu sii waday inuu riixo dib u habeynta isbeddelka cimilada, si wanaagsan loola dhaqmo qaxootiga iyo muhaajiriinta, iyo in fiiro gaar ah loo yeesho cadaadiska lagu hayo dadka diimaha laga tirada badan yahay. Waxaa la saadaalinayaa in kaniisadiisu ay bilaabi doonto oggolaanshaha guurka isku jinsiga ah iyo ka hortagga uurka. 5. Jeff Bezos waa ninka ugu taajirsan dunida maanta, wuxuuna aasaasay shirkadda elektarooniga ah ee loo yaqaan Amazon
Sanadii 1994 waa agaasimaha guud ee shirkadda, wuxuuna ku leeyahay saamidan 11%. Amazon waxay haysataa awoodda ugu badan ee ganacsiga elektarooniga. Shirkadiisu waxay ka heshaa iibka ku dhawaad $232 bilyan sanadkii. Intii u dhaxaysay bilihii Maarso iyo Abriil 2020, intii lagu guda jiray faafidda cudurka COVID-19, Amazon waxay sheegtay inay shaqaaleysiisay 175,000 oo shaqaale oo dheeri ah. Bishii Abriil 2020, Jeff Bezos wuxuu sheegay inuu $100 milyan siin doono Feed America, oo ah hay'ad samafal oo ka shaqeysa bangiyada cuntada iyo bakhaarada cuntada ee waddanka oo dhan. Jeff Bezos wuxuu furay xaaskiisa McKinsey sanadkii 2019, kadib 25 sano oo ay isqabeen, wuxuuna ku wareejiyay rubuc ka mid ah saamiga Amazon oo qiyaas ahaan dhan $38 bilyan. Jeff Bezos wuxuu leeyahay wargeyska The Washington Post iyo shirkadda Blue Origin, oo ah shirkad ka shaqeysa hawada sare oo soo saarta gantaalada ama robotiska ganacsiga loo adeegsado. Hantidiisa guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa $202 bilyan. 4. Angela Merkel waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee hogaamiye ka noqota Jarmalka 2005, waxayna haysaa madaxtinimada markeedii afraad. Waxay caddaysay inay tahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu adag lama huraankana u ah Midowga Yurub. Waxay qayb lixaad leh ka qaadatay maareynta dhibaatada qaxootiga ee Midowga Yurub. Bishii November 2018, Angela Merkel waxay ka tagtay hoggaanka xisbiga Christian Democratic Union, waxayna ku dhawaaqday in aysan raadin doonin waqti kale jagada. Hantideedii guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa $11.5 milyan. 3. Donald Trump wuxuu noqday madaxweynihii 45aad ee Mareykanka, wuxuuna wax badan ka bedelay waddanka tan iyo intii xukunka uu la wareegay. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ragga ugu awoodda badan dunida, iyo sidoo kale bilyaneerkii ugu horeeyay ee madaxweyne ka noqda Mareykanka. Xudunta hantidiisa waxay ku xiran tahay dhismayaal ku yaala gudaha iyo hareeraha faras-magaalaha Manhattan ee magaalada New York. Trump wuxuu doortay labadiisa wiil ee ugu waaweyn si ay u maamulaan ganacsiga qoyska inta uu xafiiska joogo. Hantidiisa guud ahaan waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad $2.5 bilyan. 2. Vladimir Putin waxaa loo doortay qofka dunida ugu awoodda badan 4 jeer intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2016. Wuxuu go'aansaday inuu soo nooleeyo Ruushka, isagoo ka dhigaya quwad weyn oo qayb ka ah adduunka. Madaxweynaha Ruushka wuxuu saameyn ku yeeshay waddankiisa dunida oo dhan. Saameynta caalamiga ah ee Putin waxay ka timid inta badan ku tiirsanaanta reer Yurub ee saliidda iyo gaaska Ruushka. Shirkadda ay dowladdu leedahay ee Gazprom waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ka ganacsada Midowga Yurub. Diyaaradaha cirka ee waddanka Ruushka waxaa ku kacaya lacag qiimaheedu tahay $2.5 bilyan maalintii. Hantida guud ee Putin waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad $70 bilyan. 1. Xi Jinping waa hogaamiyaha waddanka adduunka ugu dadka badan, dhaqaale ahaanna ah midka labaad ee ugu sarreeya marka laga eego dhanka wadarta wax soo saarka gudaha ama GDP-ga. Xi Jinping wuxuu si adag gacanta ugu hayaa xisbiga kaliya ee siyaasadeed ee Shiinaha, oo ah xisbiga Shuuciga. Sidoo kale wuxuu helay darajada hogaamiyaha ugu awoodda badan Shiinaha. Bishii Maarso, baarlamaanka Shiinaha wuxuu wax ka bedelay dastuurkiisa, isagoo ballaariyay awoodaha Xi Jinping, xadidaadaha faraha badanna ka dulqaaday. Hantidiisa guud ahaanna waxaa lagu qiyaasaa $1.5 bilyan.